السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا waa dhakhtarka lafaha isbitaalka jaamacadda Jazeera. Waxaan rabaa maanta inaan bulshada wacyigelin yar u sameyno taasoo ku saabsan daawo ka mid ah daawooyinka sida khaldan magaalada aadka loogu isticmaalo. Soomaalidan u taqaano kiniiniga abuubariiska. Daawooyinkan caafimaadka waxaa loo yaqaanaa steroids. qaabab kala duwan ayay bulshada u isticmaashaa. kiniiniyada ugu badan ee isticmaalaan sida khaldanna loo isticmaalo waxaa ka mid ah kiniini la dhaho prednisolonka, kiniini la dhaho dexamethasonka, iyo daawooyinkaas boomaatooyinka la xiriira ama cirbadaha la xiriira sida hydrocortisonta, boomaata ha noqoto ama cirbad ha noqoto. daawooyinkan caadiyan waa daawooyin loogu talagalay in xanuuno lagu daaweeyo, loogu talagalay qoritaanka dhakhtar ama prescription lagu qaato, mana ahan in bulshada inay farmashiyaasha tagto iska qaadato si khaldan u isticmaasho. taas waxay dhalisay in dad badan oo dhalinyaro u badan ay daawooyinkii si khaldan u isticmaalaan, gataan, muddo dheerna cunaan. dadka qaar way qaadan karaan haddii dhakhtarku uu qoro xanuuno la ogyahana loo isticmaalo, laakiin haddii bukaanka iska qaato asigoo aanan xanuun qabin muddo dheerna qaato waxaa ka dhalanaya dhibaatooyin dhanka lafaha iyo murqaha iyo jirka ah. dhibaatooyin badan ay daawooyinkaas keenayaan, laakiin qaybta lafaha iyo murqaha haddii aan soo koobo 3 dhibaato oo ka mid ah kuwa ugu badan ee aan bukaanada ku aragno waxaa ka mid ah 1 lafihii oo jilca, awooddii lafaha oo jilicda, taas ama si kale haddaan u dhahno osteoporosis wax loo yaqaano. normally dadka lafahooda waxay jilcaan marka ay soo weynaadaan 60 sano 65 sano gaaraan ama marka ay qofka dumarka dhiiga caadada ka go'o. laakiin waxaa dhawaanahan batay qof dhalinyaro ah 20 sano 25 sano jiro at the same time na u imaanaya asigoo jug ku dhicin inuu lugtii qaybtii hoose ama gacantii ama meelaha si fudud uga jabo. marka aad wareysatidna qofkaas muddo sanada bilooyin ah ayuu wuxuu qaadanayay abuubariis iyo daawooyinka lamid ah. marka lafaha oo jilca kadibna horseeda inay si fudud ku jabaan waa dhib ka mid ah dhibaatooyinka ugu badan ee dhalinyarada daawooyinkaas isticmaasha ku badan. dhalinyarada isticmaasha daawooyinkan waxyaabay u isticmaalaan oo dhibaatooyin ka dhashana waxaa ka mid ah inay isku cayiliyaan. dhalinyarada TikTok ku jirta, dhalinyarada kaleeta social media isticmaasha, dad badan oo aanan fahansaneyn ayagoo siyaabo kale iyo qurux iyo wax ka raadinayo ayay intay isticmaalaan dhibaatooyinkaas la kulmayaan. waxyaabaha kaleeto aan aragno waxaa ka mid ah in qof dhalinyaraha uu imaanayo iyadoo sintii ama labadii sin ay xanuunayaan. markii la fiiriyana la arkaayo in meeshii kashi iyo mooyaha Soomaalida ay dhahaysay oo lafta boodada qaybtii kore meesha sinta ka galaysay madaxii oo dhintay ama bilaabay inuu dhinto, dhiigyaa ka xirmay. waxyaabaha sababana waxaa ka mid ah daawooyinka. waxaa ka mid ah waxyaabaha cajiibka oo aan ku arkay qof yar oo 25 jira oo ii yimid oo kala goyskaas aanan fadhiisan karin, salaadii dukan karin. marka aan wareysanay ii sheegay in muddo dheer uu daawadaas qaadanayo. marka in laga taxadiray u baahan tahay. waxyaabaha kaleeto daawooyinkan badan ay keenaan waxaa ka mid ah murqaha iyo seedaha ayay daciifiyaan. seedaha waxay horseedaan inay dilaacaan, rupture wax loo yaqaano ku dhacaan, gaar ahaan seedka ciribta oo kaleeto meelaha ugu badan ee saameeyaan ay ka mid tahay. murqihii awoodooda ayay yareysaa. marka waxaan bulshada fariinta ugu muhiimsan aan u jeedinaa waxay tahay in daawooyinka ama xasaasiyad ugu yeeraan abuubariiska ee steroidska loo yaqaano in aanan cunin haddii uusan dhakhtarku qorin. aadan iskaa farmashi intaad tagtid usoo qaadan. haddii aad qaadanaysidna aad kala tashatid dhakhtarkaagii muddada iyo xilliga kugu habboon iyo waxyaabaha ka imaan kara si faa'iidada iyo halista ka imaan karta la isugu barbardhigo, kadibna haddii ay kugu habboon tahay lagu qoro, haddii kalena lagaaga ilaaliyo. fadlan ka taxadara. daawooyinka waxay noqon rabaan dhibaatooyin ku soo kordhay dhalinyaradii iyo dadkii da'da yaraa ee mustaqbalka wadankii bulshada wax u tari lahaa ayay naafooyin iyo dhibaatooyin horle u horseedayaan. marka laga baraarugo, especially dhalinyarada aad ha uga baraarugaan. assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.